wafdi hogaaminaya agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar shaqo ku soo gaaray magaalada Ceerigaabo ayaa xarunta maamulka gobolka Sanaag kulan kula qaatay gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo isduuyaasha wasaaradaha dawladda ee gobolka. kulankan ayaa lagu gorfeeyay sidii loo dardargelin lahaa shaqada laamaha dawladda, waxaana kulankan laga hadlay muhiimadda uu leeyahay xafiiska cusub ee anshaxa shaqaalaha gobolka oo lagu soo kordhiyay gobolka markii ugu horeysay. waxaana ugu horeyntii kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha Dr. Said Muuse Xoosh oo ka warbixiyay ujeedka safarkooda. maanta inaanu soo booqano oo nimaadno gobolkii Sanaag runtii waan ku faraxsanahay, waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweysay. kulli shaqaan halkan u nimidnay, shaqadii qarankan u nimidnay gobolka Sanaag anagoo hurgalayna shaqaalaha qaranku sida ay u shaqeynayaan iyo dhammaan dawladda shaqaalaha dawladdu sida ay uga hawlgalayaan gobolka Sanaag ayaan kula soo wadaagno oo kala soo qayb galay. runtii waan ku faraxsanahay isku duwayaashu inay nin walba xafiiskiisa oo heegan ku ahaa saaka aroortii hore oo diyaar ku ahaa iyo adigoo bar saabkii baan soo xoro ku nimidnay dadkii u shaqeynaysiin waad ku mahadsantihiin. waa shaqada qarankan aanu idmanayn dhammaan ma uga faa'iideysanaa fursadda shaqaale weynaha khaasatan gobolka Sanaag kuwa jooga. dhammaan shaqaalaha qaranka waxayna saaran inaynu nahay adeegayaal dadweyne oo dadka adeeg u dhaweyno oo dadku naga helaan adeeg saacadii madaxweynaha ugu talagalay wareegto ku soo saaray hay'adda shaqaalaha ku waafaqday oo ah 7 subaxnimo ilaa 3 galabnimo inaad shacabka u shaqeysaan. taasaanu dabagalkeeda saacadaha shaqada iyo shaqada soo socotanahay oo dadkuna naga helaan adeeg wanaagsan oo hufan oo wax la naga xisaabtami doono. taasaanu muhiimadda siinayna waanad ku mahadsantihiin, waan idinka mahadcelinaynaa. qodob labaad ma naga faa'iideysanayaa shaqaalaha dawladda meel kasta joogaan dalka. waxaan halkan oo magaalada Ceerigaabo ka sheegaynaa maanta u sheegaynaa oo xasuusinayaa xeerka hay'adda shaqaaluhu wuxuu dhigayaa inay shaqaaluhu yihiin shaqaale ka madax bannaan siyaasadda oo xisbina loo ogolayn. xisbiga xukuumadda iyo xisbi kale oo mucaarada midna inay qaataan calaamadiisa xeerku ka mamnuucaya, kaasuna lanagu kor joogtaniya annakuna aan dabagalkeeda nahay. qof kasta oo siyaasadda ku milma waxaa qabanaya xeerkaas baa loo eegaya. barsaab shaqaalahagana waad ku dabagelaysin hadduu la idhaahdo annakana isku duwaa noo jooga gobolka, isku duwayagana hawshiisu qabsan doonaa. qof kasta oo shaqaalo oo siyaasad ku milma xeerka shaqaaluhu waxa waajibka uu leeyahay bal laga mari. shaqaaluhu waajibna xuquuqna way leeyihiin, waajibaadna waa leeyahay. labadaba way saaray waa la isku eegi. aadna waad u mahadsantihiin. taama uga faa'iideysanayaa qofkii siyaasad inuu gala doonayay intuu shaqada dawladda iskaga tago ayuu xisbi taageeri doonaa halkaas oo calankiisa iyo calaamadiisa iyo xaqna uu leeyahay qofka muwaadinka inuu shaqada iskaga tago dawladda oo xisbi galo haddii uu hubbigiisu iyo ka maarmi waayo. aad baad u mahadsantihiin reer Sanaag, shaqaalaha dawladda Sanaag jooga waa shaqada weyneed haysta wadigu hambalyeynaya. annakuna waxaana saaran wixii maamul daajinaya hay'adda shaqaalaha ku xidhan inaanu gobolkan keenno oo barsaabkaalaha u galno oo si dhow kula shaqeyno. ayaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo isduuyaasha wasaaradaha waxbarashada, qoyska iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka, iyaguna si wada jir u soo dhaweeyay agaasimaha iyo wafdiga uu hogaaminayo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay agaasima booqashadaada marka koowaad. marka labaad waan ku faraxsanahay xakameynta iyo ilaalinta iyo dabagalka shaqaalaha dawladda inay u hoggaansamaan shuruucda dalka. waana insha Allah ku dabagelinaa hadii alla idmo, waynuna ka wada socon doonaa oo wixii si joogto ah reportka ugu kala qaadan doonaa. maamul daadajin badan oo noo sameysano hadday ahayd guddiga shaxmarinta ee heer qaran in heer gobol laga keenay guddiga shaxmarinta ee heer gobol aan soo wareegsay. waan ku faraxsanahay, waxaan ku faraxsanahay inaad sameysaan insha Allah bismillaahi kariimaan wax badan oo Hargeysa loo degi jiray ina xafiiskii gobolka hay'adda shaqaalaha keenteen. beentina agaasimaha guud iyo wafdigiisa ayaa soo kormeeray wasaaradaha iyo laamaha dawladda ee gobolka Sanaag. waa Maxamed Maxamuud Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Ceerigaabo.